بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan soo bilaabnay barnaamijkeenii Advanced QuickBooks 2018 cashirkii hore wuxuu iska ahaa introduction amba Google Har oo waxaan uga soo sheekeynay kooraska iyo qaabka u wadi doona hadii la yiraahdo cashirkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay company cusub profile-kiisa sidii aan u abuuri lahayn haddii marka barnaamijkan QuickBooks hore uu kugu jiray isla markaasna la isticmaalayo barnaamijka markaas soo kicisid wuxuu soo qabsanayaa company-ga ugu dambeeyay ee aad ku shaqeynaysay sida xaaladeen oo kale anaga marka ma ahan company-gan City Electronics Company waxaan rabnaa in aan isticmaalno waxaan rabnaa company cusub in aan abuurano profile cusub in aan sameyno kadibna waxyaalaha aan u baahanahay meeshaas aan ku soo abuurno hadii la yiraahdo si aan u isticmaalno hadda waxaan imaanaynaa file menu inta wax ka dambeeyana waxaan soo gudbeynaa amarka ugu horeeyo oo ah new company-gaas ayaan hal mar gujinaya si aan company cusub profile-kiisa aan u abuuro barnaamijkan QuickBooks-ka wuxuu ka ogol yahay inaad company badan aad abuurtid waxayna ku xiran tahay baahidaada amba sida u isticmaalaysid normal shirkadaha hal company ay abuuraan profile-kiiskaas ay isticmaalaan laakiin marka qaarkood waxa laga yaabaa kuwa badan inaad isticmaashid oo aad abuuratid marka barnaamijku ku ogolaanaya inaad company badan aad isticmaashid qaab badan ayaa loo abuuraa express start ayaa jiro oo si degdeg inaan ku abuurno detailed start oo si faahfaahsan su'aalo badan oo ku weydiinaya xal badan ayaa ka jawaabaysa in aad u abuurtid in aad sameysid company hore ugu jira QuickBooks-ka mid lamid ah in aad abuuratid iyo in aad isticmaashid other option-kaas waxay noqonaysaa in company kale oo abuuran oo barnaamijyo kale ku abuuran sida Quicken amba software kale in aad isticmaali kartid oo aad soo qaadan kartid kadibna company-gaaga aad ku apply gari kartid qaabka ay u sameeyeen hal qof ma leh dad ma wada leh chart of account-ka sidoo waxaas oo dhan ayaa soo qaadanaysa company-ga ayaa ku apply garaynaysa aniga waxaan isticmaali doonaa express start wax loo yaqaano waxaan rabaa si degdeg ah inaan company-gan aan u abuuro talaabooyin yar oo kooban meeshan ku yaal kuwaas ayaan waxaan isku dayaynaa marka in aan buuxino oo aan ka shaqeyno hadda fiirsid marka godadka la buuxinayo qaar waa godad aad ku qasban tahay inaad wax galisid sida midka ugu horeeya business name-ka industry-ga iyo business type-ka qaybta kor hadda fiirsid calaamad yar oo asterisk amba ku dhifasho yar ayaa kor ka saaran waana gudid waaye hoos hadda fiirsid wuxuu ku leeyahay required waa god loo baahan yahay haddii meeshan aad waxba ku qorin isdhahdid soco haba yaraatee create company-gan active ma noqonayo maba soco kartid waxaa ku qasban tahay inaad buuxisid information inta kale waxay iska noqon doonaan optional oo ah inaad wax ku qortid amba inaad iska dhaaftid laakiin saddexda ugu horeysa oo ah shirkadda magaceeda nooca ay tahay iyo waliba dadka iskala yihiin qasab waa inaad buuxisid marka shirkadana abuurayno waxaan u bixinaynaa Bafo Electronics Company magacaas ayaan siinaynaa ayaan taabanayaa industry-ga haddii aad taqaanidna ku qoraysaa haddii kalena waxaad taaban kartaa help me choose programka ayaa waxaa weydiisanaysaa in uu ku caawiyo haddii hal mar aan gujiyo meeshan waxaa ku yaala industries kala duwan amba noocyo kala duwan ee shirkado iyo akoonada ay isticmaalayaan ina industry aad dooratid wuxuu ka saacidayaa xoogaa yar oo akoon ah inuu barnaamijkan uu ku abuuro haddii aad rabtid akoonadaada ina adiga aad abuuratid waxaa usoo gudbaysaa amar loo yaqaano other amba none ayaa imaanaysaa taas wuxuu ku siinayaa chart of account-kii oo maran oo faaruq ah barnaamijkan xoogaa yar barnaamijyada kale uu ka duwan yahay barnaamijyada kale markaa leedahay akoonadeeda anaga ayaa abuuranayo waxay ku ogolaanayaan ina adiga aad abuuratid hal akoonna kuma abuurayaan laakiin barnaamijkan QuickBooks-ka waxaa jiro حتى هدي أدورتيد إن أكون هذا أريجا أبورتيد أكون وبرنامجك أسجع وكو أبوراي أياجرو وأي تاي مرة والبو ميدو أسجع سبيناي مركا أكون هذي أسجع أبوراي أريجا هدي هذا المركا لا يا أبوراي وحين هو نسا مركا لا ولا وجر أكون هذي إني ميشك صوم مقدا qaybaha soo socda hadii la yiraahdo marka akoonada abuurayna ayaan ku sheegaya akoonada barnaamijkan oo abuurayo oo aadan laga rabin in adigana abuurtid marka kuwaas oo kale waa iska dhaafina barnaamijka ayaan u dhaafina inuu asaga oo abuuro marka waxaan taaban doonaa other ambanen si aan aniga akoonada aan u baahanahay aan u sameysto kadibna okay ayaan taabanaya
waxaa ku xiga business typeka wuxuu ka hadlayaa lahaanshaha. sole proprietorship waa shirkad qof ay leedahay. partnership waa qolo isku tagtay. corporation wuxuu noqonayaa saamileedi amba dad badan oo lacag isku soo darsaday. bal qaybtan waxaan ka dhigaynaa partnership amba LLP oo ah limited liability partnership. wuxuu ahaadaba waa shirkad ay dad isku imaaday lacagtooda oo isku darsaday oo raba awoodooda inay mideeyaan. shirkadahan partnershipka marka hore waxaa la qortaa heshiis oo loo yaqaano partnership agreement. waa in lagu heshiiyaa sida dhaqaalaha loo soo maalgelinayo, si loo maamulayo, sida faa'iidada loo qaybsanayo, qaabka waxay u soconayaan, waxaasoo dhan waa lagu heshiiyaa. heshiiskana wuxuu ku fiican yahay inuu noqdo heshiis qoran. haddii marka waxaa la qorto hadhow haddii muddo kasoo wareegato la isqabto waxaa lagu laaban karaa heshiiskii qornaay. marka qof walbaba meeshaas ayuu ka qanci karaa. waxaana fiican in wax walbaba meesha lagu qeexo, lagu sharaxo qaabka wax laiskula wadaayo, qofka maamulka noqonayo, si maamulka loo bedelayo, qof hadduu dhinto sida amba uu ka baxo shirkadda, sida dib loogu habeynayo, inta isku hartay. waxaasoo dhan waxaa qasab noqonaysa heshiiskaas in uu ku caddaado. halka arin oo yaabka leh oo arkaysid ganacsiyada Soomaalida markaa fiirinaysa waxaa ka mid ah dad lacag isku darsanaya, heshiis kala qoranayana ma jiro, heshiis maaliganayana ma jiro. iigu dar bes sanad kadib waa la isqa qabanaa, waa la isjijiidaa, waa la isdagaalaa, haddana waa la kala jabaa. taas waxay keenaysaa marka shirkadii in ay awoodeeda kala dhantaalanto, shirkadii ay farabadato, qolooyin kale ka hoos baxaan, shirkado kale ay noqdaan. mar way fiican tahay dhaqaalaha haddii la fiiriyo oo shirkado badan haddii la abuuro shaqo abuur badan ayay sameynayaan. marna haddii la fiiriyo way xun tahay. waxaa laga yaabaa markay kala baxbaxaan in awoodooda ay yaraato, suuqa ay isku cariiriyaan, kadibna ay musallafaan amba ganacsigooda meesha uu ka baxo. marka waxaa fiican mar walbaba in wax la isku ogyahay meel la isla dhigo. faa'iidooyinka ay leedahay marka partnershipka amba in lacagaha la isku keeno ayaa waxay tahay dadkan isku imaanayo lacago badan ayay isku keeni karaan, awoodooda way miday karaan, suuqana share fiican ayay ka heli karaan oo customers badan ayay soo jeedi karaan bacdama lacagooda iyo awoodooda ay mideeyeen. xagga maamulka markii la fiirinayo bacdama dad isku wada tagay ay yihiin, ayadana waxaa fududaanayso in shirkaddan si sax ah loo maamulo, ra'yi fiican lagu maamulo, dadkii taladoodii iyo maamulkoodii ay isku darsadaan. markii loo fiirinayo shirkadda marka qof kaliya uu maamulayo sole proprietorshipka, partnershipka waxaa malaysaa inuu aad uga fiican yahay. teeda kale xagga deymaha iyo wax soo raadishaalka iyo macaamiil soo xiridana aad ay ugu fiican yihiin, ilaan dad badan isku tagay oo xoogooda mideynaya ayay noqonaysaa. xagga ballaarashada iyo inay ballaartaan ay u badan tahay oo markii baranja ay sameeyaan, baranja labaad ay ku dhiiranayaan, mid saddexaad ay ku dhiiranayaan, mid afraad ay ku dhiiranayaan. taasina waxaa keenaysa lacagna way hayaan, xoogna way hayaan, maamul fiicanna way hayaan, ilaan dad isku wada tago waxooda maamulanaya ayay noqonayaan. ayaga xoogaa yar khasaarooyin yar ayaa jira. disadvantage waxaa ka mid ah in qof hadduu dhinto shirkadaas ay baaba'ayso oo la rabo dib in laiskugu habeeyo oo inta isku soo hartay ay haddana dib ay u shiraakoobaan ayay ku qasbanaan doonaan. amba qof hadduu ka baxo sidoo kale isla arrintaas ayaa imaanayso oo waxaa qasab noqonaysa in heshiiskii lagu laabto, dib loo habeeyo. teeda kale waxaa jiro hal arin ay ka wada sameeyeen ayaga iyo sole proprietorshipka oo ah unlimited liability, oo ah deyn aanan xad lahayn. deymaha lasoo qaadanayo oo qof ka mid ah partnershipkan amba dadka shirkadda maamulaha mid ka mid ah uu soo qaadayo waxay la macno tahay in dhammaan dadkii lacagaha isku darsaday inay deyntaas mas-uul ay ka wada yihiin. shirkadda deyma salafteed deyntaas waa laga wada rabaa. nin walbaba hantidiisa gaarka ah ayaa laga qaadayaa wixii uga soo aada deyntaas shirkadda lagu leeyahay. haddii shirkadda ay iska bixi weyso deymahaas lagu leeyahay markii ay musallafto. waxaan rabaa marka inaan usoo gudbo employer identification number EIN oo ah number dowladda ay siinayso qofkan shirkadda aasaasanayo oo hadhow lagu canshuurayo ama lagula soconayo dhaqaaqiisa. Soomaaliya ma jiro, waa kasii soconaynaa. mar ayaa Puntland isku dayday inay sameyso nidaam noocan, laakiin ma aqaan meel uu ku dambeeyay. hadda waxaan umaleynaa inuusan shaqaynaynin. waa number la siinayo qofka shaqo abuurka sameynayo amba employerka amba qofka loo shaqeynayo. ujeedkana wax kale maahan, waxaa la rabaa in lagu tiro koobo shirkadaha kadibna wixii xaq lagu leeyahay ay saas iskaga bixiyaan oo canshuuraadka. business addresska ayaa ku xigo oo ah businesska ama ganacsiga meesha laga furayo. waxaan leenahay tusaale ahaan maybe next to the Habshiil Bank, meel dhowaan ka dhiganaynaa, kadibna Bakaro Market ayaan ku qoraynaa. labadaas sadar marka waxaa loogu talagalay in lagu qoro
addresska cityga wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano Mogadishu. cityga Muqdisho ayuu noqonayaa. stateka Banaadir ayuu noqonayaa, laakiin meeshan waxaa ku jira 52 state ee Mareykanka oo lasoo gaabiyay bacdama programkan uu yahay program Mareykan. marka BA kuma jiro amba Banaadir waa ka tegaynaa. zipka 252 wuxuu noqonayaa nambarka wadanka Soomaaliya lagu soo galo, marka zipkiisa ayaan ku qoraynaa. countryga Soomaaliya ayaan ka raadinayaa. meeshan wax Soomaali lahay kuma jiro, marka waxaan iska qaadan doonaa other ayaan qaadan doonaa amba others waxa u taqaanid. kadibna taleefanka ayaan ku qoraynaa. taleefanka waxaan iska geli doonaa xarunta baaf taleefankeeda. inta wax ka dambeeya waxaan hal mar gujinayaa create company. create company hadda waa active waaye, waa isticmaali kartaa. sababtan wax kale maahan, saddexda column ee ugu horeysa amba saddexda god ee ugu horeyso ayaan wax ku soo qoray. haddii mid ka mid ah oo ah business name ko kala tusaale ahaan aanan waxba ku qori lahayn, ma jiro lahayn create company wax loo yaqaan amba hore ma soo socon lahayn. marka waxaan ku soo celinayaa qoraalkiisa si aan hore ugu sii socono. company magaciisa ayaan ku qori doonaa, kadibna create company ayaan taabanaya. wuxuu bilaabayaa marka in uu bal profilekan oo isku habeeyo oo company fileka uu ku sameeyo. gal ayaa lagu sameynayaa companygan aad soo codsatay, magaciisa wixiisa dhan ayaa lagu habeynayaa. kadibna waxaa lagu siinayaa meel aad ku shaqeey kartid haddii la yiraahdo. meeshaas ayaan waxaan bilaabaynaa marka inaan howlaheena aan ku qabano isla markaasna aan ku shaqeysano ayaan bilaabi doonaa. wuxuu ku leeyahay okay, waxaa jiro howlahan inaad qaban kartid, ma u baahan tahay marka inaa dad aad soo gelisid oo customers amba vendors service account bangiyo. waxaan leenahay start working, waxaan gadaal ayaan ka sameynaynaa haddii la yiraahdo. hadda waxaa inoo abuuran internetka inuu isku xiro isku dayaa, waa ka xirayaa. hadda waxaa inoo abuuran marka company cusub oo loo yaqaano Bafo Electronics Company. programka isticmaalayna waa Intuit, waa shirkadda samaysay. QuickBook Enterprise Solution ayaa loo yaqaanaa magaciisa, waana versionka accountancy 18.0 oo laga wada 2018 in uu soo baxay. wuxuu kamid yahay versionada ugu dambeeyay, walow hadda 2020 amarona, laakiin waa versionada ugu dambeeyay ayuu kamid yahay. barnaamijkan QuickBook wuxuu ku fiican yahay isbedelada ay sameynayaan. normal wuxuu u badan yahay interface-ka ayuu badaya. hadda 2014 oo kale hadda isticmaalaysid iyo midkan 2018 xataa interface-ka aad iskugu eg yihiin, wax badan oo farqi badan aad dareemaysid haba yaraatee ma jirto. marka haddayba wax sameynayaan waxay isku dayaan si tartiiba oo qofka isticmaalaya barnaamijyada QuickBook uusan dareemeynin ayay wax uga bedelaan, si uusan u noqonin barnaamijka version walba cusub markay soo saaraan mid cusub oo dadkii ku dhibtoodo oo hadhow ay ku qasbanaanayaan inay training kale ay ku laabtaan. marka waxay isku dayaan inay aad u fududeeyaan. haddaa mid ka mid ah baratid ku kale aad ay kugu fududaanayaan. anigoo kale waxaan soo bartay mid la dhihi jira QuickBooks 2001 QuickBooks Pro ayaa lahay 2001. qof yaroo buug wato oo cararayo ahay xataa loogadooda xilligaas. midkaas ayaan soo batay ilaa haddana waa la haystaa. barnaamijyadan ay soo sameynayeen oo QuickBook amba desktop ha noqdo amba midkan online ka hadda cusub xataa ha noqdo, dhammaantood way iska fududaanayaan haddii la yiraahdo. maanta insha Allah taala cashirkeena intaas ayaan ku hakinaynaa. intaa cashir lamid aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.